waqti aad u yar baa hadhay nadwada qaybta ay goo qorraydna waxay sheegaysaa ma jiraa dhibtayna haysataa cid kaloo muslimiina ama dunida oo ku dhacday oo inala qabta waa qadiyad taariikhi oo runtii imla waqti u baahnayd haddii la isku dayo in laga warramo laakiin uun qaacido caamaa iska jirta umamka jira marka ay ummadi dumayso dhowr waxunbaa ku dhaca waxay dhahdaan takhdiir qofka bini aadamka isagoo nool oo soo jeedo jidhkiisa qaba lama qali karo waa adagta waa la suuxiyaa dhakhtarku hadduu rabo inuu ku qalo waa in wacyiga kaa lumiya waa inaad suuxdaa kadib buu midida bilaabi karaa marka la suuxiyo kadib ayuu jaraaxu googoynta bilaabaa googoyntu markay dhammaatana waa lagu maamuli karaa waa qaacido qur-aanku sheegay ina fircawna calaa fi lard wajacala ahlaha shiyacan yastadcifu taa'ifata min ilaahay wuxuu leeyahay fircoon dunida wuu ku kibray laakiin inuu kibre maxaa gaadhsiiyey ilaahay wuxuu yidhi dadkuu kooxa ka dhigay dadkii uu xukumayey ayuu kooxa ka dhigay kooxa markay noqdeenna yastadcifu daa'if koox ka miduu kolba gumaystaa kooxna waa loo yaro buriyaa waxbaa loo tuurtuuraa waa qaacidadii fircoon wax ku maamulay isticmaalkuna waa qaacidadu wax ku maamulay divide and rule baynu maqan lahaa qayb iyo xukun waa nafsi alqaacida umam badan ayay qabyaaladda nooca loo adeegsaday baabi'isay hadday tahay carabtii hore jaahiliyadoo islaamku ka soo saaray hadday tahay muslimiintii cusuurta dhexe oo maqrib alcarab iyo andalus iyo dhibaatooyinkii ka jiray dee burburkooda waxyaabihii sababay waxaa ka mid ah 3 qabiiluun bay sayey barbar iyo yamani iyo qaysiyiin shaamiyiin carab laba ah kooxooda iyo berberiyiin dhexdooda uun say isu inqilaabayeen isu dilayeen buu xadkan gaadhay alkhilaafa alcuhmaaniya dowladdii ugu dambaysay muslimiinta ee weynayd dagaalkii koowaad ee duniday burburtay sababtu waa maxay reer galbeed baa waxay adeegsadeen qowmiyaadkii muslimiinta kale baa lagu kiciyey iyadu way lahayd mushkilaadkeeday wadatay oo sii daciifaysay dabeetana shariif xuseenkii maka maamulayay iyo carab baa la yidhi waxaa laydin siinayaa khilaafo gaar iyo waa kan tiina muusinina faransiis iyo ingiriis baa dabada ka heshiiyey xagga hoose waxay ku heshiiyeen in yuhuud falastiin la siiyo carabna in la googooyo qoloba qayb qaadato carabi inay dowlad noqoto may dhicin ee 22 tuulo oo kala nooca ka soo baxay oo dee meelaha arkaysaane dhowr boqoloo baa dowlada ah 300 kun 800 kun 500 kun inba sheekh baa la siiyey dowlad looga dhigay khilaafadii islaamiga ahaydna way baabaaday natiijadii ay u dhalay dagaalkii koowaad ee dunidu waxa weeyaan in laga takhallusay dowladdii weynayd ee islaamiga ahayd haatanna bini aadamku wuu isdilaa mushkilad weyn maaha wuu isqabtaa laakiin innaga caqliyaddeenna waxay tahay xalka qura aynu naqaano maaha hataa ummadda waa 2 qof oo Soomaaliyeed imka hadday isqabato horta waa inaynu gacanta ku kala quus qaadannaa kadib baa dee garta laynoo naqaya laakiin marka hore aqbali mayno war bal laynoo garnaqdo waa adagta waa il bini aadamku haddii afkaartiisu wax iska beddesho imika yurub baa joogtaan dowlad yurub ka midoo sanad iyo dheeraad aan dowlad lahayn baa jirtay socanka maaha belgium in sanad ka badan dowladii kama jirin waxay isu qabteen qaybta faransiiska ku hadasha iyo qaybta ku hadasha holandiiska haddana waxba kama baabi'ina waa jirtay tasiiru dawla baa jiray budget baa la sii daynayey maamul baa sii socday haddana waa la isayey sanad iyo dheeraad kadib ayay aqbaleen in dib madax loo doorto dib loo sameeyo oo meel sanad iyo dheeraad aan dowlad lahayn oo haddana mu'asasaadkeedu shaqaynayaan maxaa jira waxaa jira caqlaa jiray odhanaya iyo inaan isdiline aan xal si kale u raadino inaan isdiline aan xal si kale u raadino soomaalida iyo burburkay soo martay wax badan oo lagaga celceliyo uma baahna waxaanan rumaysnay in la sixi karo qof kastoo taariikh akhriyey xadkaynu joogno xad ka hoosayso may dunidu soo martay
dad caalam islaamiya dagaaladii tataarka akhrido andalusiya wixii ka dhacay haddaad akhrido yurub iyo wixii ka jiray haddaad akhrido afrika iyo wixii ka jiray haddaad akhrido haddana waa laga soo gudbaa taariikhda bini aadamku waa sensidual taariikhda bini aadamku marna kor bay u kacdaa marna hoos bay u dhacdaa ummad xadiidka loogu talagalo iyadu weligeed dhulka socotaa ma jirto dunida ummad cirka socotaana ma jirto waddan aan dumin oo aan lumin germany maxay ahaan jirtay intaan bismark ururin intaasoo dowladood yurub maxay ahaan jirtay intaan la ururin dunidu waa qofkays yidhaahdo soomaali lama ururin karo ama lama samayn karo waa qof aan hallaba jirin waa riyo waa isbedeli kartaa waana xaqiiqo jirtaa ma aha waxaan ku riyoonayo ee wax taariikhda soo maray taariikhda markhaatigeeda leh soomaali dad ka liitay baa dad noqday soomaali dad ka liitay ayaa dal noqday waa jira gacan khaarijiya laakiin goormay dunida cid khaarijiya ku tidhi waar idinku masaakiin baa tiinay dowlad noqdo ka kaakaca meesha ma dhicin ummad waliba iyadaa halgantoo dowladnimada samaysataa cid aan la duminna londantanaad joogtaan dhinacaa laga maray baddaa lagu daray haddana dib bay dowlad ka soo noqotay cid aan dib u soo kici karin bini aadamka ma jirto ilaahay saxaabada markii la jebiyey lama odhanin khaalid baa xariif ahaa iyo quraysho halka idinka baxeenoo saamale qul huwa min cindi anfusikum baa ilaahay yidhi idinka xaggiinay ka timi idinku haddaad dib u fakartaan oo dib wax u samaysaan you can do waad samayn kartaan weeyaan masalada ah soomaaliya way baaba'day oo ma soo kacayso waa waxaan jirin waa jabtay laakiin waa kici kartaa taariikhda bini aadamkaana markhaati ka ah taariikhda islaamigaana markhaati ka ah mid gaal iyo muslimba waa sheegaysaa in bini aadamku dib u soo kici karo waxa dunida dad la gumaystay ama la tumay ama laga xoog batay cid tidhi war dadkani waa masaakiin haddaba aan ka kacana ma jirto cid waliba iyadaas ka kicisay waxaan uga jeedaa waxaynu u baahan nahay dariiqa inaynu qaadno bilowgiisa oo ah maskaxdeennana inaynu bedelno tiradeennana inaynu tayo u yeelno tiradeennana inaynu tayo u yeelno ah inaynu dib boogaha u dhayan karno dib u wada hadli karno dib isma qasbi karno dadka badh baa weli soomaaliya waa muqadas taagan muqadas kuma noqonayso waxay wax ku noqonaysaa inaynu boogaheenna dib u dhayanno dib u wada hadalno dib isu qancinno dib u garnaqsanno dib isugu dulqaadanno wax badan bay u baahan tahay laakiin waxay ka bilaabantaa dee kilomitirku tallaabunbuu ka bilaabmaa haddaad tallaabada hore jartana waad socon haddaad is tidhaahdo war waaba kilomitire see loo soconayaana waad fadhiyi anu warkaygu wuxuu ku kooban yahay markaa taariikhda bini aadamku waa meel wax laga barto dad jabay oo laga xoog bato badan taariikhda horaa loogu soo arkay dad dib u soo guulaystay oo soo kacayna horaa loo soo arkay innagu unbay inooga baahantahay inaynu leenahay waddadii ma qaadaynaa lagu guulaysanayey mise weli waxaynu haynaynaa dhabbihii lagu sii baaba'ayey taasina waa qof waloo halkan fadhiya iyo qof waloo t v iyo raadiyo inaga maqlaya iyo qof waloo soomaaliyeedoo fakeraya inuu dib uga fakero see baynu dib ummad ugu noqon karnaa aniga caqligayga maaha soomaali waxaan ururinaya waxaan arki karaa muslim oo dhan inaan dib u soo kicin karo laakiin soomaaliya waa halkan ka intilaaqaya waa halkan ka bilaabaya waa halka gundhigay ah laakiin waxaan rumaysnahay afrika oo dhammi inay shalay muslim ahayd afriki in yaroo coptica in yaroo ortodogasa wax diinoo kristana joogay afrika in yaroo ortodogasa والله لا بروتستان ولا كاثولي ولا استعمار ولا في انجليزي شلو يبي وحرمي شلو يبي waxaan rumaysnaynaa afrika dib u noolayn karo waxaan rumaysnaynaa caalamul islaam inaan dib u doorayn karo waxaan rumaysnaynaa dunida inaan isbedel keeni karo ka bedeli karo dunidaan ku noolahay ama west ha noqoto ama east ha noqoto ama afrika ha noqoto inaan isbedel ka samayn karo waayo dunidu waa tolkayo waa bini aadam waa ilmo nebi aadam baa jooga ilmo nebi aadamna waa ila nooc ilmo nebi aadam waxay u baahan yihiin caqligooda in dib isbedel loogu sameeyo marka waxaan ku soo koobayaa we can do the job laakiin waxaynu u baahanay inaynu nafteennana aaminno mabaadi'daynu rumaysanana aaminno socod iyo dhaqaaq iyo camal ku darno asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد